wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad xildhibaanada madaxda xisbiyada iyo siyaasiyiinta aqoon-yahankii marsharafta Ciise Muuse ka fadhida aad iyo aad baan u salaamaya madasha horta madal siyaasadeed bay naga noqoto dee waa aad iyo aad baan uga xumahay waxaan mideen maanta u nimi waxaa idin ka hadlo danaha Ciise Muuse haddaynu siyaasadda dowladda kaabeegina uu soo socdaa mikrofoonaduna way badan yihiin madalowna way badan qofku markuu doono hadli karaya laakiin halkan lagu caadifadaysa haddaynu soo istaagno haddaynu dee dhaliishu waa sixi laakiin aflagaada samayno iyo haddaynu waxyaalahan munaasib madasha ku hayn ka hadallo runtii ma qurux badna markaynu Ciise Muuse isugu nimaadno marka dad aynu talnahay meel isugu yimaadaan yeelan isaflagaadeen baastay soo cuneeniyo iyo waxaa sameeyo ceeb weyn dadkanu baasta ma cunin han mideeyo niman aqoon-yahan iyo habla aqoon-yahan isku tagay dawladda u yimaadeen wax qabadkay kala hadleen waxay kala hadleen sidii wala shaqeyn lahayn aad iyo aad ugu mahadsan xisbiga kulmiye u tageen oo wada hadleen oo taageereen ceeb iyo beentona ma marka qofkii diidaya iyagii ka soo horjeeday isaga dee u taala haddii xisbi kala taageersan tahay xisbiga kala taageeraysa deegaanka Ciise Muuse degan yahay ilaahay baa u dooray waa deegaan khayraad badan leh fursado badan baa runtii soo socda iminka dekedeena berbera aragtaan maaliyadda adduunka World Bank qiimeyn baa la sameeyey adduunka oo dhan dekedaha ku yaala kaalinta 106 bay ka gashay geeska Afrika marka la eegana dekeda koowaad bay noqotay wadamo badan oo nala jaaraba cabaaday qaar baa muraan dilaacay qaar baa wax kasta ku hadlay guusha iyo horumarka la gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee xukuumadda Muuse Biixi hogaamiyaha keentay Dr. Saad Cali Shirna maskaxda ugu weyn ee xukuumadda ku jirto marka intaaynu ku faano reportka la soo saaray runtii wax weyn buu ka bedelay isticmaalkii dekeda ayaa isla sanadka markaa kor u kacay waxa horta inaan faahfaahin u baahnay wadadii berbera corridor baa la dhisay yaana fara badan oo Soomaaliland waxa abaal ku qabil lahayn marka wadadaas inay marto in mashaariicda maalgelinta ee deegaanadan markaa Soomaaliland ka degan laga sameeyay inay helaan bay abaal ku qabil lahaayeen ilaa alxamdulillah baan leenahay Soomaaliland baa wada isticmaalaysa laakiin deegaankeena ku yaalaan waa la horumar runtii la taaban karay saacadda dadkii runtii kaalinta weyn kala habo kamid yahay oo lagu amaanaya taariikhda ku galaya madaxweyne Muuse Biixi xukuumaddiisuna runtii sharaf bay ku leeyihiin waxa kale oo idin sheegayaa اعترافكي runtii aad iyo aad loo sugayay insha Allah maalin dhaba sidii markii horeba loogu naxay MOU markii la sameeyay anu taariikh sheeg baayay laakiin meel loo qacba yeedhi doonto insha Allah taala اعترافkaasuna horumar weyn buu keenayaa dalkeena runtii u taraya dunida imika wala xeer balana dad fara badan oo Ingiriiska degan iyo qaar kale badan oo caalamka tagay iyagoo sharaf leh ay baasaboorka inay ku dhoofaan ay ku tagaan marka Mareykan Ingiriis Yurub Asia meel kasta sharafta inta leeg iyo horumarka inta leeg sameynay isagoo sharciyeysan oo ka sii wanaagsan oo ka xoog badan ay maaldo marka waddanka la ictiraafanayo waddanka si ku tagi doona maanta hal bilaay marka runtii qorshaha ay qabteen oo ku hambalyeynaya qorshaha kale ay soo qabteena lacagta wixii lagu dhawaaqay mooyaane inta kale cidda baqaadaan la weydiin maayo wasiirkan la weydiin maayo meel bay ku qorayaan laba toddobaad ana oo keenay marka ana wakiil ka ah xisbiga kulmiye xukuumadda madaxweynaha insha Allah taala waa deegaankeena wax kasto galaya xukuumaddu waxay qabanaysaa waa gaar bay u qabanaysaa laakiin wixii deegaankeena galay runtii anaga u horeyna hal midayna oo barbar taaganahay ugu dambeyntii waxa ku soo gabagabeynaya aynu gacmaha isku qabsanaa runtiisa waddanka loo difaaci lahayn اعترافkiisa soo socda lagu diyaar garoobi lahaa insha Allah taala doorashooyinka soo socda si nabadgelyo lagu dhici lahaayeen mar labaadna madaxweyne Muuse Biixi aynu dooran lahayn. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.